dugsigan hoose dhexe iyo sare ee kulmis waa mid kamid ah iskuuladii ugu shidnay ee aan booqnay intii aan wadnay hawshaani ahayd ogow nooca dhiigaaga si aad u badbaadiso naftaada iyo naf kalaba maxaa yeelay waxaan kula kulanay waxyaabo badan ama hal ku dhigyo aad u qurux badan kuwaas oo indhaha soo jiidanaya iyo sawirro kala gedisan kuwaas oo dhiirigelinaya caruurta wax baranaysa oona ku indho doogsanayo qofka iskuulka soo muuqda albaabka ugu horeyso markii aan galeeyaba indhahaygu waxay qabteen barar ama baro noqo midkii wax barayay ama noqo kii la barayay waan ka gudbayo markan hore u galmaagaba dhinacayga bix waxaa iga qabtay sawirro lagu sharxiyo aad u qurux badan kuwaas oo tilmaamaya hidaha iyo dhaqanka Soomaalida waxa ku sawirnay alaabahan aad arkaysiin sida kurbin dhiil murugsin falaar qaanso toorey barshi quluc koor cashuun haan kal iyo moy ajaa'ib midka kale ka daran hore ayaan u gudbay mise waxaan arkay hal ku dhig kale oo aad u qurux badan hal ku dhigaas aad ku quruxda badani wuxuu ahaa saddex midood midi way ihaysaa midna waan ishaynaa midka kalena wuu ihayaa inaan wax qabsado way ihaysaa dadaalna waan ishaynaa waqtiguna wuu ihayaa waa hal ku dhig inaba caadihayn waan ka gudbayo waxaan meeshaan ku arkay hal ku dhig kale oo English kaasoo ah learn today live tomorrow maanta baro oo bari hogaami sababtoo qofka maanta wax barta ayaa bari hogaamin kara intaas looguma ekayne qaaladihii dunida oo dhan ayaa loo sawiray waa midda doonto bari hogaami waa Africa Asia Europe America iyo waliba Australia intaas looguma si aabiyeedin waxa farshaxanka quruxda badan loogu sii daray sawirka maroodi intaas kuma sii ekaane waxaan wali ka sii yaabay oo meesha aan ku sii arkay qof xamaali ah oo alaab jiidaya kaasoo hal ku dhig weyn loogu hoos qoray oo la yiri wax weyn tunka ku qaad ama tacliinta toos u aad adiga ayaa door leh haddaad noqonayso xamaali iyo haddaad noqonayso mid anta wax barta bari qalinkiisa macaasha hal ku dhigyada meesha ku qoraa intaas kuma ekay ee waxa kale meesha ku qornay hal ku dhig kale English kaasoo ahay your best teacher is your last mistake macallinkaaga ugu wanaagsani waa qaladkaaga ugu dambeeyay macnaheedu waxay tahay qalad kasta waa inaan ka baranaa 10 ardadana waxa loo sheegayaa in qalad qofku inuu galo ay saliib lahayn ee qaladka qofku oo 10 ka baranayo waxa daran inaan 10 ka baran weyso gabagabadii hadalkayga ma soo koobi karo farshaxanadii qoraaladii ku qornay dugsigaas aan booqday waana sababtaan u iri wuxuu ahay mid kamid ah kuwa ugu shidnaa iskuuladii aan booqday indhahaygu way ku dareen oo hadba darbi ayaan aqrinayay kaba soo gudubo markii aan tagay xafiiska gudaha waxa ku diyaarsan hal ku dhigyo kale midka iigu cajaa'ibta badnaa ee soo jiitay wuxuu ahaa erayadii abwaankeenii weynaa ee Hadraawi kaasoo ahaa qalinka wax suureeya kugu sima halka doonto saaxiib kal furan weeye sunto fara ku heyntiisa weliga hasiideen waa markaana waxaan idin gudbinayaa aragtida ardayda iyo sida ay u arkaan in ay ogaadaan nooca dhigooda waliba iyadoo loogu baarayo si free ah qaar kamid ah ardayda dugsiga hoose dhexe ee kulmis oo aanu booqanay asbuucan ayaan ka wareysanaynaa aragtidooda si oo arkaan in laga baaro nooca dhigooda bismillaah ani magacaygu waa Sikiya Cabdirasaaq Maxamed digta iskuulka kulmis ahayna fasalka fonfar maanta aad ugu faraxsanahay inay soo booqataan ciisi doctors anakoon ogeyn dhiigageena ayna baareen dhiigeyguna uu yahay ee balas waxa dhahay waa mahadsantiin shaqada wanaagsan dadku qabanaysiina si wada ayaa dhiilay aad ayaa mahadsantahay Sikiya galaaskayga waxa waaye form 2 ahay maanta waan ku faraxsanahay dhiigeyga in laga baaro oo dhiigeyga wax badan aan ogeyn dhiigeyga inuu ahay maanta aan ogaado سعيد أي مهم يقول تهي ديجي جنو حواي أو بلاس بسم الله أنا مجري جاسر مع عبد القادر محمد كان صار سكوكا كل ميس فصل كيجا فم 2 بي ديجي جا أو ماني سواي مهم إنه هاي نوجادو ديجي جا ومسيهين عيسي دكتور يسوي مسيهين هذا مودن هذا وباسنتهي magacaygu waa Muna Xamse Maxamed oo dhigata iskuul kulmis galaaskaygu waa fonfor aad ugu faraxsanahay maantina ogaado nooca dhiigaygu iyo aadan ugu mahadcelinayaa ciisi dhiigaygana waa oo balaas ma sha Allah baliyo oo maasantahay waxa kale oo igu cajaa'ib badnayd iskuulkan aan ka arkay
dhowr arday oo ka mid ah oo ogay nooca dhiigooda kuwaasoo soo galay safka baaritaanka sheegeen inay doonayaan in loo baaro nooca dhiigooda balse ahaayeen dad ogaa nooca dhiigooda waxay noo sheegeen inay tijaabinayeen waxa aan wadno inay yihiin wax runa iyo wax kale gabagabadii waxaan ku soo xireynaa aragtida maamulka iskuulka ay ka qabaan hawshan aan u fulinay oo waqtigeennii iyo qarashkeenniiba ku bixinay bismillaahi raxmaani raxiim maanta taariikhdu ku beegan tahay 18 bisha labaad 2023 waxaana soo booqday ciisi doctors oo u sameeya arrin muhiim ah u haysa bulshada gobolka Banaadir iyo bulshada Soomaaliyeed si guud ardayinka si qaasana bahda waxbarashada u haya waxay u sameeyaan ardayda inay ogaadaan ay u fiiriyaan ardayda balaad groupinka ama qof walba dhiig nuucu uu yahay in loo sheego waa shaqo muhiim ah oo wadanku u baahan yahay maadaama aan joogno magaalada Muqdisho ay tahay oo Muqdishona xawaashida iska badan tahay oo xilli kasta qofku uu shil iyo dhib isa gali karo inuu qofku si og yahay dhiig nuucu uu yahay intii waqti looga dhumi lahaa in dhiig uu baaro hadhowdii markii uu dhaawac wax soo gaaraan ama uu si kale ugu baahdo waxay noo sameeyaan ardada intii ay ka gaareen warjeynay mar labaad iyo mar saddexaad inuu ugu soo noqdaan ilaahay idmo oo wareegto iskoolada dhammi ku wareegaan markii aan kala nasiib u yeelano ilaa kuntumeeye arday maanta noo sameeyeen dhigood kala duwan oo balaas A plus O minus B plus dhammaan la kala ogaanayo iyo intii ay ka gaareen macallimiinta kamid ah mar labaad iyo mar saddexaad aan ku hadlayo dhammaan macallimiinta afka macallimiinta iyo ardayda iyo dhammaan maamulka sare ee iskoolka dugsiga sare ee sare kulmis waxaan uga mahadcelinayaa booqashada ay soo booqdeen iyo shaqada ay dalka u hayaan waana ku dhiirigelinaynaa inaan dhiraano waa mahadsantihiin sii wada shaqadiina ilaahay garabkiina ha galo ajar iyo xasanaad oo ugu rajaynaynaa inay ka helaan bulshada samafalka ay u hayaan insha Allah waa mahadsantihiin sharafta leh waxaan in ka codsanayaa inaad muuqaalka noo la gareysaan sidoo kalena aad noo share gareysaan si uu u gaaro asxaab badan oo u wanaagsan sidiinoo kale haddii ay tahay markii kuugu horeysay ood soo booqatana fadlan waxaan ka codsanayaa inaad soo follow gareyso kuna soo dhawaato bahda caafimaadka ee Ciisi Doctors caafimaad u ifiyaasha Soomaalido idil